xilli muddo ku badan 4 sano degmada Weejid ee gobolka Boqol iyo go'doonka jirta kooxda argagixisada hay'adda shabaab iyo waliba xilligan arintaasay walaa xoogan ku muujina shacabkii ganacsatada ka noolaa degmada Weejid ee gobolka Boqol ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhibaatooyinkan ka badan oo xilligan ganacsiga ka awdaan iyo waliba kumida in yanjarna wadiyo marsiin raashinka iyo xuquuqda magaalooyinka kala libana dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ka baaqina in iyo si degdegan u qayb qaadaan sidoo furo lahay jidadka galow beledkan Weejid ee gobolka Boqol gaar ahaan jidka dheer oo markaasay tahriiriyo magaalooyinka baydhabo iyo Weejid إن إلى إنه بيوقف طبعا ما أدري لما تقول لي أفربول يكون تنقاري ويجي أفرتم السنة إيه بركان توجد يبني أفربول يكون تنقاري يلا كقولي فتاس بول يكون تنقاري ترى أنا قلت أنت سارة أنت دمد ويجي لك الهايو أصل الهايتي أنت أستاذ بربورتي كل دمد بربورتي ما أصلنا دولد فضل على كمية أصلنا إني ودوي كان هوك سار دولة هذه mana al-shabaab raamad bulshadan aslaagda jiran wala godoomi maata beel dawladda hagalay dawladda hal godoomi dawladda inuu yaan mana warqab way ku asaanay dawladda ma kun koreeyta inay ugu dasaytaas ilaahay laakiin dawladda federaalka koonfur galbeed in hooga saaran ciidamada dhisan yihiin laakiin mala ciidamada galabka film haysan wadooyinka fur lahaayeen mana awood geedka ciidamadan kalsoon laakiin dawladda hilmaantay way ku asaanay dawladdan jidka wadooyinka hirin oo 49 ah dawladda ugu qabatay aan baahan maxamed raxmaan xalaasana dheere maxamed koorama ganacsiga degmada Weejid ee gobolka Boqol maadaama qiimaha ganacsiga waa aan ka dhaqaaqo degmada Weejid ee gobolka Boqol inkastoo jidrin jaraadana magaalada aadan isku xirata ay baa ganacsi walwalba u baahna dakoyan diyaariyoon jid qiimaha isku daraasan alaabta magaalooyinka markii la fiiriyo barees ahaan may farqeen bahay bershay lama dooran dhayd bershay shan dhayd bershay way baa see dooran ma dhayd KG ya lama dooran noo qaada diyaar la kala shaana waran gaarin 20 doolar kala kooyan maywaaye qiimaha maal dhibaatada raashinka iyadaan maywaaye raashin baawar iyo magaalada mahad loo male ardayda maywaa raashinka dayda gaarigi wali meelo aku kalahay gaarigi ilaa waliba shan wali bahay argay dayda maywaaye ardayda dhibaatada si meelaasin jarta raashinka dayda gaarigi ما بايلو نوغان ما ويجد أرتيو أرد أبدأ أكجار ما كجارة أدي بابور لحصار البون جي بقولون جي مدرسة هذا مجارد بوليس يتنا ما بقول هني هذا جارد جمال نرجع تكجار marka aynu ku waran bixirnaashaha saameyntaas siinka waalad ganacsaha xirnaashaha wadooyinka هذا دبل كم هذا دبل كم علاوة أرد مر هدي هذا هجرة بايلو يميلون هجرة تنافسية بلا دور كين جراه marka la shabaab la kulma madoona duurka keenga jare aan taasanahay mulka degmada amba maamulka koonfur galbeed maamulka federaalka dawladda federaalka amba dawladda koonfur galbeed ma eedan qodsadaan ana deegaankan Weejid ee hoogan saaran bulsho badan ka nool ganacsatada geek ilaa meesha dukaamo isin aragdan buraanburi ka dhalle qordaan maridana ma hada jar laanki dukaankan ku weyn ilaa marshan faritood la maritood hay haangal la fadhi may weeli dantiya ka kalafti kuran dhibaatooyinka xilliyada qaar jaran xirnaasha wadooyinka meel soo saameyn badan iyo weelati oo injarna gaadiidka gala wadooyinka xilliyada qaar nolol ka nool iyo qatarta injarta kumidata in la kasheena cuntooyinka ama raashinka la kasheena gaar dameerada ana soonahay qaab dhow Malaysia galaan magaalada dhibaatooyin kula kulmaan dagaalamayaasha al-shabaab marka kuran xaaladaas warbid xaaladiyada eedan adagda eedan adagda jiditay ilaa marshay wadiirin dameer shukri ilaa marshay dameeroon ad ergaaso wal loortel ilaa marshay laaneen ku sheenay nimankii nabadiidka umada Soomaaliyeed gumaaday ya jiditay wada fadheedi lankii $4 $3 ilaa marshay dameerka ergan dameerkin way diluhay alaabta sokortiin way gubuhay ganacsatada naftiga ganacsatada Weejid maqdhawaan baahanta hooyo dawlad hel dawladda koonfur galbeed ama dawladda federaalka ma eedan qodsadaan ganacsatada Weejid ana maqdhawsiyan si kastaba dhibaatooyinka xilligan ha wajahan dadka ka noolan degmada Weejid gaar ahaan ganacsatada may xaano la koobo karo walibana dhamaantii sabab ah xanibaada markaasiytii iyo saareen jidadka galo degmada Weejid kooxda nabadiidka ah ee shabaab Xasan Ali Nadara KJS TV degmada Weejid ee gobolka Boqol